ururka samafalka ee Iqra ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu deeq ka kooban soolarka dhaliya korontada uu ka qaybinayo dhulka buuraha iyo xeebaha ay goboladan Awdal iyo Salal gaar ahaan goobaha waxbarashada si ay ugu faa'iideystaan ardayda ku sugan dhulkaasi oo aan haysan koronto ay wax ku bartaan iyadoo uu ururkaasi uu shalay gudaha magaaladan Boorama uu deeqo agab waxbarasho oo kala duwan uu ku gudoonsiiyay dugsiga dhagoolayaasha ee ka dhisan gudaha magaaladan Boorama gudoomiyaha Somaliland ee ururkaasi Iqra mudane Cabdiraxmaan Muuse Tubeec oo ka hadlay madal ay ku sugnaayeen mas'uuliyiinta kala duwan ee ururkaasi ee Somaliland Djibouti iyo dalka Canada ayaa waxa uu sheegay inuu ururkiisa u taagan yahay inay wax ka qabtaan dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha bulshada qaybaheeda kala duwan gudoomiyaha guud ee ururkaasi Iqra oo isna madashan goobjoog ka ahaa ayaa waxa uu ka hadlay madashan waxa uu ka shanqariyay ujeedooyinka ururkooda loo aasaasay iyo waxyaabaha ay qabtaan iskoolada inta badan ee Iqra gacanta ku hayso leer loo wada dhigo solarka school kids la siiyay carruurtii waxa kale noo dheeraaday inaan nasiib u yeelanay inay noo soo hareen school kids badan oon ugu deernay dugsiga indhoolayaasha iyo dhagoolayaasha ee magaalada Boorama waxa soo sheegay 3 chapter oo ah chapterka Somaliland chapterka Djibouti iyo chapterka Canada marka hore waxaan horta mahad u celinayaa labada hay'adood ee kala ah WF oo soo siisay agabka iskoolka ee qaybinay iyo hay'adda Caritas oo soo siisay solar kits labada hay'adood mahad u celinayaa waxa kale mahad u celinayaa kana Saciid Abi Roble oo imkaan nala joogin iyo Naciimo Yuusuf Cabdi oo labadooda nala joogin oo ahaa iyakuna qoloyin badan agabyada iyo materialka ka soo qaaday hay'adaha dhanka kale iyadoo xalay ay ahayd habeen dadweyne fara badan oo ku nool magaalada Boorama ay si weyn u soo dhaweynayeen habeenka koowaad ee sanadka cusub ee 2012 ayaa waxa xusid mudan in xalay magaalada Boorama laga furay carwo cusub oo casri ah laguna magacaabo City Sisters Shopping Center oo lagu iibin doono waxyaabaha ay haweenka isku qurxiyaan iyo dharka ay haweenku xirtaan kuwaasoo laga keenay dalka dibadiisa isla markaana ah kuwa casri ah oo la jaan qaadaya caalamka horumaray munaasabadii furitaanka xaruntan ganacsi waxa ugu horeyn ka hadlay mulkiilayaasha rugtan ganacsi Marwo Fadxiya Maxamuud Bule iyo Marwo Aamina Cilmi Fariid waxayna sheegeen in meheradani ay caawa la kowsanayso bilowga sanadka cusub inkastoo guud ahaan baac mushtarkaygu ka duwan yahay baac mushtarkii hore u jiray hadday tahay design-ka loo sameeyay hadday tahay quality-ga la keenay marka kulli daayirta la talaabsan doonto 2012 waxaanu ku faraxsanahay inaanu u keenay waxyaabihii ugu tayada fiicnaa ee baac mushtarkeeni lahaa oo kale waxaanu leenahay daayirta dhalinyarta haweenka ragga dhamaantood gacmo furan ku soo dhawaanaysiin qiimo jaban iyo sanadka cusub in isla jaanqaadno insha Allah si kastaba ha ahaatee furitaanka rugtan ganacsi ayaa noqonaysa tii ugu dambeysay ee ku soo biirta saaxadda meelaha lagu iibiyo agabka haweenka waxaana laga dareemi karayaa isbeddel weyn oo ah xagga alaabaha lagu iibin doono xaruntani iyadoo ay u soo daawasho tageen dadweyne fara badan oo u badan dumar kuwaasoo aad u soo jiitay indhahooda waxyaabaha lagu iibiyo xaruntani ganacsi Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama